munaasabada xuska 18 May ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil muddo 25 sano ayaa laga joogaa markay qaranka Soomaaliland uu dib ula soo laabtay madax banaanidiisa 1991kii lagana dhawaaqay magaalada Burco ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa guud ahaan waxa ay saaka arooryadii hore iskugu soo baxeen jidadka waaweyn ee magaalada Berbera waxaana ay socodkooda ka bilaabeen dadweynahaasi wadada weyn ee halbowlaha u ah magaalada Berbera waxaana maanta si weyn uga qayb qaatay dabaaldegaasi ciidamada qalabka sida shaqaale weynaha dekada Berbera dawladda hoose ee Berbera waaxda cashuuraha maaliyadda ee Berbera wakaalada biyaha ee Berbera ururka heer qaran ee NAW jaamacadda culunta badda ee Berbera ayaa iyana maanta si weyn oo ballaaran munaasabadaasi xustay dadweynahaasi oo wajiyadooda ay ka muuqatay jacayl wadaniyadeed iyaga oo aan dareemaynin kulaylka magaalada Berbera oo waqtigan ay tahay xilligii ugu kululaa ee Berbera balse dadkaasi reer Berbera waxa kala weynayd kulaylkaasi iyo xagaagaasi waxaana ay dadkan iskugu soo biyashubteen goobta loo aasteeyay in laga qudbadeeyo ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil dadweynaha reer Berbera yar iyo weyn sagiir oo kabiir waxaan leeyahay hambaliyo Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha jirto Soomaaliland ha joogto iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Ilaayo uu ka duulayo dad shacbigiisa doonista shacbigiisa wuxuu ku dhawaaqay haday qarni gaadhayso in qarannimada Soomaaliland aan laga noqonayso sida ma aha dhammow calankayga dhammow miyaa deeliyi kartaa tawxiidkaaga ugu xardhane miyaa deeliyi kartaa laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah marna dhulka ma gasho laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah kor ha ahaato magaca ilaahay ha jiro sanadka waa sanad ka tilmaaman sanadihii hore waxaan dekada ka warqabo sanadkii March sanadkan waxaanu soo saxnay heshiis ku saabsan dowladda Itoobiya ee isticmaasho dekada Berbera arrinkaasi shaqa ahaan iyo mustaqbal ahaan iyo xiriir ahaan iyo ganacsi ahaanba أهل أرجو بهاي بدأ iyo dibadda dadka jooga ee jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay aad baan ugu mahadnaqayaa maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan Allahu akbar adaga Soomaaliland hadho waxaan nahay qarankeena ee gobolka Saaxil dhammaan haweenka gobolka Saaxil ee NAW waa kuwa way soo baxeen waxaana u taagan 18 May ayaan u soo baxnay waxaanu salaamaynaa madaxweyne ku-xigeenka marwada haddaan ururka NAW ee gobolka Saaxil nahay waxaanu leenahay shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan salaan hambaliyo guul nahay jaamacadda culunta badda iyo kalluumaysiga ee magaalada gobolka Berbera degmada Berbera gobolka Saaxil waa munaasabad weyn 18 May sanad guuradeedii aanu dabaaldegayno waxa aan u hambalyeeynaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta oo daafaha adduunka ka joogan wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga iyo qorshaynta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay qaranka Soomaaliland meel kasta oo ku sugan yahay shacabkiisu goonistaanka Soomaaliland oo macnaheedu yahay 25 sano hadaynu gaadnay meel laga noqdo ma jirto quraanjay ku quuso kadib waxaan wafdi ahaan salaan idinka sidnaa diiran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Ilaayo oo dawladda ka yimid oo waxaanu maanta ujeedada u weynaan u joognaay tahay عاون أن أتجينا مناسبة إلى نوجانو geesta kale markuu dabaaldeggaasi soo dhamaaday waxa dabaaldeg labaad uu ka dhacay badda magaalada Berbera oo dadweynaha reer Berbera ay bad iyo bariba ku dabaaldegayeen calanka Soomaaliland Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV badda